noloshayna waxa ay ka bilaabatay anagoo nisaqoon. Waxaan ku dhalanay meelo kala fog, weligeen ismaana arkin, balse awoodda Ilaahay ayaa adduunyada nagu kulmisay. Aragtidayda waad ku faraxday, anigana sidoo kale aad baan ugu farxay. Kahelitaan iyo jacayl fara badan kadib waxaan go'aan ku gaarnay inaan isguursano oo aan mid noqono. Guurkeena maalinka uu dhacayo dadka waa ay faraxsan yihiin, balse anigu waan murugaysanahay oo waxaa la isaaray mas'uuliyad aad u weyn oo ah qof aniga nafsadeeda oo kale leh inaan u ahay mas'uul. Waxaa waajib igu ah inaan kuu sameeyo wax walba oo farxadaada ku xiran tahay. Balse waxaan u baahannahay 4 waxyaabood inaan helnaa. Midda koowaad, sabar. Waa inaan kuu sabraa marka aad dhibaataysan tahay, sida marka aad uurka leedahay, marka aad xanaaqsan tahay. Adiguna waa inaad sabartaa xilliyada aan murugaysanahay ama aan xanaaqsanahay, si dhexdeena uusan u imaan khilaaf. Midda labaad, go'aan. Waa in uu go'aankeenu ahaadaa mid aanan ku burburaynin si fudud. Go'aankeenu waxa uu noqon doonaa inaanan kala tegin ilaa ay geeriduna kala geyso mooye. Midda saddexaad, naxariis. Waa inaan isku naxariisanaa si Allah uu noogu naxariisto, khaasatan marka aad xanuunsan tahay. Marka aan labadeena xaaladaha dhiban ku jirno, waa inaan isdareensiinaa naxariis, taasoo ku dhigan jacayl aadka u weyn inaan isku qabno. Midda afaraad, xal. Waa inaan xalinaa wax walba oo xumaan ah oo dhexdeena ama familkeena soo dhexgala. Si wada jir ahaan waa inaynu u xalinaa si aan u ilaashano mustaqbalkeena ifaya.